hay-adda Berghof oo kaalin weyn ka qaadata arrimaha nabadeynta ayaa tababar muddo 3 cisho socday u soo xirtay bulshada ku dhaqan tuulooyinka Daymasam iyo Mandheer oo simaada magaalada Jowhar. Cashiro waxtar u leh bulshada ayaa laga bixiyay tababarka intuu socday, waxaana ka faa'iideystay 30 ruux oo kala yimid tuulooyinka Daymasam iyo Mandheer. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay tababarka, waxayna sheegeen in wax badan ay ka faa'iideen intuu socday tababarkan. magacay waa Mahad Axmed Xasan kana soo baxay tuulada Mandheer. aad iyo aad ayaan u faraxsanahay meeshan iskaal keenay waxbarashada sharafta leh ka qaadanay faa'iidad badan ayay ka faa'iidnay 3 maalmood oo meeshan joognay ma sha Allah alxamdulillah waxyaabo fara badan oo nulisiya jirto nabadeynta xalinta sida loo qabo lahaay nidaamkeedana ma sha Allah dadka meeshan iska soo kulisiin aad ay u mahadnaqeynaa ajirsan ilaa akasiin waa aadan qaasi mahdi oo ka soo baxay tuulada Daymasam waxaan u mahadcelinaa shirkadii meeshan iskaayna kulmisi ayaan u mahadcelinayaa waxayna tustay inaan walaaloono oo maslaxoono ayayna tustay asaat waxa uu weyn inaan maslaxadii lagu faro in la qaato haddii macnaa meel isku yimaad oo wixii lagu fari aad qaadi waysid oo ukun wax lagu shuuy aad noqotid taas waxay keenay dhibaatay keenay mid kale waxaan ka faa'iiday waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday aan ka helay waa sida oo markaas baandooriyaha laga hiro waa sida dadka loo dhaqaaleeyo intaas ayaan ka faa'iiday iga saabir Soomo Axmeday waxaan ka imaaday tuulada Mandheer waxaan ka faa'iiday wax badan. Dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay wakiilka hay-adda Berghof ee dowlad goboleedka Hirshabelle Shariif Abuukar Axmed iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Muqtaar Baari oo ka soo qayb galay xiritaanka tababarka. Celeena waqtigii adkaay oo aad joogteen oo waqtiina u soo hortaan 3 maalin la soo dhaafay oo meel fogaad ka timideen oo ognahay inaysan dhib yarayn inaad subax kasta u soo kalaxdaan oo Jowhar timaadaan kulli waxaan ka wada shaqeeynaa waa danta guud oo qof kasta mas'uuliyad ka saaranta marka aad ayaan idinka mahadcelinaa arintaas waxaan rabaa kale inaan mahadceliyo shabakada nabadeynta Hirshabelle oo Alos oo gudoomiye u yahay iyo dadkan dhalinyarada iyo odayaashan iyo maamooyinkan taqaaniino 3 maalin halkan la joogtay annaga hay'adahan Berghof Foundation badana ayaga hawsha qabto annagu waa kor ayaan kala joognaa waan wala cusub meeshan cid wax qabanaysa ayaga waay waxayna wax ku qabaan iska wax u qabsay iyo aqoonti la soo baran dadkooda gaarsiiyaan marka maadaama waqti nahayo waxaan isleeyahay ayaan war badan iyo furo gudoomiye degmada waa joogaa marka si kalimaadkiisa loo siiyo waxaan ku soo dhawayaa gudoomiyaha degmada waxaan ka tacsiyeynaa in dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay dagaaladii hore ee labada tuul dhaxmartay waxaan ku faraxsanahay inaad magaciisa aad isku timaadeen ama isku kiin keeno labada tuulo ee Mandheer iyo Daymasam waa soo dhaweynaa runaantii shabakadan aad arkaysiin ee hadda isku kiin yeertay waxaa soo tababariyay hay'ad la dhahayo Berghof runtii waxay ka dhaxleen in idinka ay isku kiin keenaan waxaad idinka rabaa hadduu ala yiraahdo idinkuna sida iiko kale inaad noqotiin ee aad isku keentiin reer Mandheer iyo reer Daymasam si ay u wada qaybsadaan kheyraadka Ilaahay ka sii dhulkooda in ay walaaltinimo iyo isku calool xaarasho ee dhaxbarto aad ka shaqaysiin hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan mar dhow soo gabagabay doonaa dib u heshiisiintii iyo sidii aan magaciisa aan ku balagnay labada tuulo ayaa soo gabagabay doonaa intii ka horeyso iyo intii ka dambayso waxaa la rabaa in lagu wada noolaado si walaaltinimo ah waxa ay ka shaqeynayeen shabakadaanne waxa waaye in sidaas aad magaciisa aad ku wada noolaatiin oo walaaltinimadii shal niga dhaxaysay ay idinka dhaxayso intaan waxay qaado waa qaadan yihiin labada tuulo waxaan umaleynaa intaan waxay qaado waxa waaye waa wax taraayo waa wax magaciisa lagu naalo karo ee dadka ay gaarsiin karaan laakiin haddii gurihiina la gashin waxa waaye wax ma tarin waxaan magaciisa idinku boorinaa ama idinku bogaadinaa in aad magaciisa aad ka faa'iideysateen wixii ka faa'iideysateen 3 maalmood in aad magaciisa dadka aad wax ugu tartiin
dadka aad gaarsiisiin aad u maasantiin waana noo xirayaan shirkii insha Allah. Yusni Maxamed Axmed, Hirshabelle TV, Jowhar.